kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale kuna soo dhawaada warka oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga wadanka South Africa ayaa waxa maanta la sheegay in madaxweynuhu soo gabagabeeyay booqashada halkaasi uu ku joogo isla markaana uu ka qayb galay calaamasaarka madaxweynaha cusub ee wadanka South Africa waxa kale madaxweynuhu kulamo la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka South Africa oo xog waraysi u dhexmaray waryahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan soo jeedinay jaaliyadda Soomaalida dhifin naadir ayay ahayd inay hor fadhiistaan madaxweyne ka socda jamhuuriyadda Soomaaliya 20 sano ee ugu dambeysay oo ila daaladhaceysay jaaliyadaasi dhibaatooyin ay kala kulmayeen shacabka South Africa ku nool kuwaas oo ay kamid ahaayeen dilal iyo dhaawac loo geysan jiray muwaadiniintaasi iyo sidoo kale in hantidooda la boobo oo la qaato jaaliyadda Soomaalida ee South Africa ayaa waxay kamid yihiin bulshooyinka soo galootiga ee ugu tirada badan ee ganacsiyada iyo horumarada ka sameynaya sanadihii ugu dambeeyay dalkaasi laakiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee hor fadhiistay isla markaana dhageystay cabashada ay qabaan iyo waliba horumarada ay sameynayeen sanadihii ugu dambeeyay socdaalka madaxweyne Farmaajo qorshihiisa ma ahayn markii ugu horeysay in jaaliyadda Soomaalida uu la kulmo laakiin socdaalkiisa ayaa ku saleysnaa inuu kulan la qaato amaba uu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha wadanka South Africa Cyril Ramaphosa oo xisbigiisa ANC dhawaan guula ka soo hooyay doorashadii ka dhacday dalkaasi madaxweynaha ayaa kulanka uu la yeeshay jaaliyadda waxa isla soo qaadeen dhibaatooyinka ay la kulmaan maalin walba iyo dhaca loo geysto waxaana mas'uuliyiintii ka qayb galay ay u sheegeen madaxweynaha in dhigiisa Ramaphosa uu kala hadlo dhibaatooyinka shacabkaasi ay la kulmaan isla markaana in la joojiyo dhibaatooyinkaasi oo bulshada Soomaaliyeed loo dhimriyo dawladda South Africa ay siiso damaanad qaad buuxa oo lagu sugayo amaankooda madaxweyne Farmaajo ayaa kulankii la qaatay jaaliyadda waxa uu sheegay inuu u diyaarsan yahay dhammaan dawladda Soomaaliya codka ay dhageysatay shacabkeeda inay u gudbiso madaxweynaha wadankaasi iyo dawladdiisa waxa ka qayb galay kulanka madaxweynaha Soomaaliya oo la yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee ka dhacay magaalada Pretoria ee caasimadda wadanka South Africa Jamal Maxamed Barrow isaga safiirka jamhuuriyadda Soomaaliya u fadhiya dalka South Africa waxaana isaga iyo madaxweynuhu ay si siman u dhageysteen dhammaan codkii ay soo jeediyeen jaaliyadda Soomaaliyeed oo ka timi gobolada kala duwan ee wadanka South Africa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in muddaaba dawladdiisu ay ku soo dhacayeen dhibaatooyinka soo gaaraya dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi isla markaana haatan ay u istaagi doonaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kamid ahaa xubno madax sare oo caalamka ka socotay oo lagu casuumay inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha wadanka South Africa Cyril Ramaphosa kaasi oo dhawaan ka dhacay magaalada Pretoria kadib markii xisbigiisa ANC ee African National Congress uu ku guuleystay doorashadii dhawaan ka dhacday dalkaasi lama oga codka madaxweynaha Soomaaliya u gudbeen jaaliyadda Soomaaliyeed inay wax ka bedeli doonto dhibaatooyinka soo gaara bulshada Soomaaliyeed oo lagu tiriyo kuwa ugu nugul oo soo gaara marka loo eego dhibaatooyinka soo galootiga ku nool wadanka South Africa hase yeeshee inkastoo madaxweynuhu la kulmay jaaliyadaasi haddana shacabka Soomaaliyeed waxay eegayaan jawaabta dawladda Soomaaliya ay ka bixiso haddii dhibaato ay soo gaarto bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi